الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما في بسم الله waxaan rabaa inaan idin qaybsado insha Allah taala xikmado kooban oo bal qosalna badan aan arkay waxyaalo badan iga soo baxay oo aan ka soo saartay waxa weeyaan inta badan waxyaalaha adduunka la dhaho waa ugu shaqada fiican yihiin ama ibn aadamka wax ka helo khaasatan shaqooyinka markaasi xirfadaha ah dhakhtarnimada iyo lawyerka iyo wixii la midka ah intaba waa shaqooyin qofka barta qofka loo caawinaya laakiin goorma caawinaya ma taqaanaa tusaale ahaan haddaan ka bilaabo midka lawyerka ah qofkii mushkilo soo gala ayuu inta badan caawiyaa qofka ay si wax ka yihiin oo ka khaldamaan wax xaalad un dhib ah iska dheh waxba qofkan uu samaysan karo qofkan u sameynaya waa sida marka lawyerka wuxuu meesha u fadhiyaa waa maxay qofka dhibban inuu dhibka ka caawiyo haddii aysan jirin dadka noocaas oo kale oo dhibban ama badan ma shaqaysan karo marka waxa weeyaan qof u fadhiya dad badan oo dhibban u imaadaan si uu wax u helo kow waa cajiib midda kale waxay tahay dhakhtarka qof xirfadiisa ay tahay qofka xanuunsada ama sidaas oo kale jaba ama meel dilaacda iyo wixii la midka inuu kabo ama uu tolo iyo wixii la midka haddayse dadkaasi dhaawacan ama xanuunsan ama jaban aysan jirin dhakhtarka shaqo ma helaayo marka waxaa laasim ah inay jiraan maa maxay dadkaasi xanuunsan ama soo jaba ama jirkooda jeexma ama wixii la midka si marka shaqadiisa u jirto waa inay arrintaa jirtaa marka waxaad u imaanaysaa qofka makaanikaga ah ee gaariga sameeya u imow wuxuu sameeyaa san waa maxay gaarigan asoo wanaagsan ma sameeyo wuxuu sugaa ama uu shaqo helaa markuu gaarigaada halaabo waxbaa si ka noqonaya lugaa kaa banjaraysa ooryaa si ka noqonaysa ama bedel u baahan ama wixii la midka gaariga motorkiisa si u khaldamaya ama wax u halaabaya ama nalala kaa gubanaya waa kaasa xilligaad dhibaato ku jirto ama aad rafaasanta ayuu gaarigaada ku sameynaya isagana markaas wuxuu kusoo khatimay mataqaana arrinta qosalka waxay tahay mataqaana wuxuu yidhi intaa oo dhan mashaakilkaaday sugaan midka lawyerka ah dhibtaada u sugaa si uu shaqo u helo tabiibka sidaas oo kale ee dhakhtarka ah wuxuu sugaa in aad xanuunsato ama wax un kugu dhacaan si uu shaqo u helo makaaniga sidaas oo kale inuu gaariga kaasoo halaabo halka u fadhiya si uu shaqo u helo laakiin qof waxaa jira dhibtaada aanan sugaaya inaad adiga tahay qof wax leh wax haysta waa ay mataqaanaa wuxuu yidhi qofkaasi waa tuugga wuxuu jecel yahay in guriga u khatarsan ugu hantida badan inaad deganta si wax aga helo marka waxaan ku keena wax weeyaan insaanka caadiyan noloshaa waxay tahay nolol marna aad faraxsan tahay mar aad murugaysan tahay mar aad oynayso waa nolol noocaas ah waxa aad qabanaysaa shaqo ah waxay doonaan ha ahaadaan marna ha samayn inaad qof dhib ku jira ad aga faa'iidaysato qof ha dhibban ha uga faa'iidaysan noqo qof qalbi furan caawiya dadka xilli walba inta hadda aan soo sheegnay ma ahan macnahooda dadka dhibka ku jiray ka faa'iidaystaan laakiin waxa weeyaan qofka markuu dhibban yahay waa marka ugu baahida badan yahay in la caawiyo in loo gargaaro la garab qabto loo jilcanaado waxaan ku siinayaa weliba aan xasuusanayaa cabdullahi bin mascuud ayaa wuxuu iibsaday geelii markuu iibsaday wuxuu arkay geelan qiimahan la sheegayo inuusan u qalmin qiimo ka badan u qalmo markaasuu qiimihii oo isyiri asaga u qalmo oo badnaa ayuu siiyey sidaasoo kale rasuulku kaga dayanaya marka waxaan kugu soo koobaya waxay tahay dadka wanaagga la jeclow dadka caawi baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu